anigu muddo aduu ilaa dhowr sana xagga salxama ayay dhibaato iga haysatay. sawirkan dambe aan kuu soo diray geedaha daba taaganahay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن سلام وانيقو موسى ميشا نقل سعطان وكونا لبدار عاوي دمان كاشان بورتا رقيتم روماسنتين شي شرفت الاسكو عاوسان انيقا نادي عاوسان فضلا دانو عصوب تاي سبسكرايب لايك شير كومنت انتا وكمان مرنا إن شاء الله ما انتو وحانو ودا نتيجو وروح بدل نتيجة اسنو حتى ونتيجة صلحياه كسابسان صلحياه كسابسان تا لسعودا قفل بددال كيسا ايو وحكو غارا قفل با وددال كيسا ايو وحكو غارا maaha mid mataqaanaa oo afku imaado waa mid ficilku ma hadana wiilkan walaalkeen runta ahaantii wuxuu idhahay hal caagad baan soo gatay waliba caagadii wali bar bay ii dhahay bar ay ii dhahay wuxuu isticmaalayaa bil iyo bar ayuu isticmaalay barna waa ugu jirtaa ma sha Allah aad buu dhaqaaleystay walaaksin natiijana uu keen dhaqaale baa soo bixin maxmed natiijo ayuu ku keensaday wuxuu ku keensaday isbedel marka qof walba nasiibkiisa ayuu cunaa taasna maaha wax oo mataqaanaa dee dhibaato ay ku jirto ma aniga hadda tayda ka hadlo mushkilo ma arko laakiin adigoo laga yaabo inaad si kale u aragtaa tiraad see xabad barkeed oo bili bar u isticmaalaya oo subinan dad basaas isticmaalo iyaas way jiraan dad basaas isticmaalo ali xaajo isticmaalaya laakiin kastoo dadaalkiisa yar laakiin wax fiican uu ku keensan natiijo ma sha Allah timo oo taabto oo mataqaanaa ku qanacsan yahay uu keensan dhalinyaro kale natiijo qurux badan ayuu ku keensadeen wiil saaxiibkay ah asna wuxuu ku keensaday hal caagadood muddo 2 bil ayuu isticmaalayay waxa ku keensaday natiijo aad u qurux badan ku keensaday marka dadka isku wada mid ma aha marka qof walba nasiibkiisa iyo calafkiisa cunaya okay taasna waxa waaye waa wax qofka nasiibkiisa ma aha wax oo keenan waayahay insha Allah adan gudo galna mar walba waxaan jeclahay taxasuusto dhalinyarta 17 ilaa 25 sano jirto daadaas intaas fadlan iska ilaaliyo dhibaatooyinka waxyaaba ay keenay ka fogaada jilcisada kalarka madoobeysada sidoo kale maxaad ku falaysaa okay isweydii adiga 17 sano jirtaa sababta aad madoobeys u marsanaysid maxay tahay miis okay qof marsanaya aragta waa iska marsatay okay timajara wuxuu ku dhahay dhac madow dhacaan kugu sii hay igu sii atri ايش فائده wax faa'iido ma la saga shaqadiisu wata adiga dhibkaaga waay marka waa yar tahay marka insha Allah fadlan ka digtoono maadaama aad tahay qof yariis ah oo da'da 17 ilaa 25 ku dhaxayo waxaad u baahneen madaxaaga ku kalafin insha Allah adiga midkaaga xisaabtan okay aan ka gudubno waayahay aan u gudubno macnaha xaaladda kale oo jirto aan u gudubno waayahay maxaan u gudbeenaa natiijadan quruxda badan Soomaaliya natiijadan ruuxaantii waxa waaye deemid adigaba nafsad ahaantaada markaad aragtid qofka horta isbedel uu keenay sidoo ahaan jiray okay insha Allah cod uu leeyahay waa haya walaalkay oo idin dhahayo asxaabteeda la wadaag ku qanci ku dhiirigeli ma sha Allah waa nin aad u fiican dadka waa dhalinyarta dhan asaga kaliya maaha macna kulli ayaan ka wada aad ay u fiican wallahi mid walba uu jecel yahay in mataqaanaa qofka meeshaas maray in la dhiirigeliyo kor loo kiciyo ayuu jecel yahay sababtoo ah asaga haduu guuleysto wuxuu jecel yahay dadka kale inay la guuleystaan yes waa arin aad u fiican fiiri adiga waxa jeceshahay walaalaha la jecelo okay walaalaha waxay suubiyeen waxa ayaga jecelihiin ay anaga nala jeclaadeen okay adiga marka maxaa laga rabaa adiga ahaantaada daawanaya hadda maxaa laga rabaa waxaan maaha musalsal maaha laakiin waxay tahay sheeka dhab ah waa sheeka dhab ah reality oo run ah runtana waxay tahay meesha sida joogtid haniya jabin oo kor soo kac okay walaalkeen wuxuu dhahay horta waa idin daariya qaybahan ka jarjaraya insha Allah inta kale waa idin daariya waa idin maqashin doona macnaha run waay bil aadanka asaga markuu hadda fiiri oo sidaas ay dhalinyaro waxa arkaysa xaaladaas ku jirto wuxuu leeyahay ani bidaar mali ayay ku dhahayaan dabeecadaas waxa waaye ma aqaan dib uu isku qanci nafsadiisa wuxuu ku qanci waxaad u jeedid ayuu rabaa inuu ku qanciyo okay waxaad u jeedid ayuu rabaa inuu ku qanciyo marka lama rabo wax been ah in nafsada marka ku qanciso lama rabo asaga runtiis waa wuxuu dhahay mataqaana aniga ahaan hadda teeda ka hadlo waxaan isku qancin jiray dhahay inaad timo ku qarin jiray laakiin timaha ma qarinayaan dhahay waa loo jeedaa dadku way u jeedaan dhahay inaad salxay igu tageen oo hal alif dhex iga haray way u jeedaan dhahay laakiin aniga qancin ana isku qancin jiray dhawaan qof ba intuu ku soo waco kaamiro ku daaro ayuu wuxuu ku leeyahay ana bidaar mali marka qaybtoodan waa isla yaaba waxaan dhahay ma garan qofkii wuxuu isku qanciyay ana bidaar mali okay dhaxaas dhana duleesho meeshaas dhana banaan marka nafsadiis muxuu ku qanciyay aniga bidaar mali haddaan naftada taas ku qanciso wax ma qaban kartid okay waa u jeedaa bidaar in la dadkan way ku jeedaan inaad bidaar leedahay adiga markii la iska hadlo markay hadlaysa ka soke waad u jeedaa sax inaad bidaar leedahay Soomaa okay
marka maxaa laga rabaa ficil laga rabaa nafsadaada weliga been ha ku qancin nafsadaada runta u sheeg runta hadda adiga isku sheegtid adiga shakhsiyan waad ka gaari kartaa aniga aad ijeedid mar walba waxaa isku qanciyaa inaan koob iyo laba taagin laba inaan taagnin ayaa isku qanciyaa runta hadda ka hadlayo sababta waa ogsoonahay waxaan dadaalka ugu jira midii hore iyaas isbedel fiican waa ay keentay okay laakiin markaan joojiyay sababta dadka mar walba ay ku su'aalayaan dhalinyarada mar walba ay ku leeyihiin timaha baash markii la joojiyo ma baabaa okay ha markaa joojiso way baaba'ayaan niyo helooshik markaa joojiso dadna waxay ku leeyihiin waa noo soo baxda okay qof walba nasiibkiis ayuu cunaya aniga mid arkay waxa waaye inay timihi rafaad ay yihiin soo bixitaankooda dad joojis inay rafaad yihiin ayaan arkay laakiin hadda maalmahan dambe alxamdulillah ayaan dareemayaa laakiin insha Allah waxaan rabaa weli taas kaliya ma rabo inaan jawaab mid kale cusub aan ka keenaa rabaa waayahay marka insha Allah raali noqdo maadaama hadalka ku badiyay hadalkan waxa uu ku badiyay waxaan rabay muhiimadda inay tahay inaan nafsadaada aad been ku qancin nafsadaada aad runta u sheegtid nafsadaada runta u sheegtidna horumar waa gaari kartaa okay adoo shay aad gaarin hada ku qancisa okay shayga soo qabsan kartaa mana awoodid inaad soo qabsatid laakiin dadred isku daytaanku wuu fiican yahay taas ayaa fiican inaad wax isku daydid aad tijaabis laakiin adigoo tijaabin nafsadaada kaliya aad ku qancisid already okay wixii waa qaban karaa mana qaban kartaa markay ficil imaado marka taas waa insha Allah kan raali noqda waayahay aan gudubno insha Allah sawirka ugu horeeyo alfiiri sawirkan walaalkeen oo nala soo wadaagay waa intuusan bilaabin sawirkan dhageysta la socda waa intuusan bilaab waa markuu dhahayo waxa isku qancin jiray inaan aniga bidaar lahayn macnaa aan ku qarin jiray ayuu dhahay anaan waxa isdii jiray ku qari salxayahaas okay already dad badan ayaa ku qariyo Soomaa sax dad badan ayaa ku qariyo oo aaminsan ba inay bidaareen laakiin dadna qaybtoodu way aaminsan waxay ku leeyihiin timaha hadda kor u qaado bidaar ay ugu jirto waa ogahay waayahay marka walaalkiin ma sha Allah ayaa leenahay Allah u barakeeyo waa u jeedaa hadda xaaladda uu ku jiro waa markuu u dhahayay aniga timaha ku qarin jiray dadku way arki jireen waa sax waa lagu arkay qof walba uu ku arkay laakiin nafsadaada ku qancisay leema arkaayo waayahay hadda waa u jeedaa sawirkaas hadda xaaladdu uu yahay Soomaa marka maxaa idin tusayaa timihii ayuu jaray okay timihii ayuu jaray sidaan waa hadda markuu timihii xiiray sidaan ayaa soo baxay sidaan marka maxaa u jeedaa hadda xaaladda sidaan markay tahay u jeedid maxay kula tahay ninkan timihii wuu xiiray maxaa soo baxay meeshii waxaa soo baxay inta dhan hore inay tahay eber runtii inta hore inay eber tahay ayaa soo baxday waayahay macnaha markii hore dad been isku qancisay markaan reality imaad Soomaa bas waa qof dadaal badan alxamdulillah wuu ogaaday inuu ficil u baahan yahay inuu dadaal u baahan yahay wuu ogaaday wuuna dadaalay ma sha Allah sawirkan kale waa u jeedaa Soomaa kii labaad waaye wuu xiiray marka madaxii waa xiirayo markaan hadda hawsha iyo bilow ayuu galay okay waxaan u gudbaynaa insha Allah sawirka labaad sorry raali noqda sawirka saddexaad ee ugu dambeeyo waa sawirkan quruxda badan waa aw jeedaan sawirkan hadda quruxda badan aw jeedaan alxamdulillah sidan ayuu ka imaaday soo xiiran sidan uu imaaday ma sha Allah marka hore laakiinse waa runtiis waa sax wuu ku saxan yahay wuu isqancin jirin waana reality wax jira waa wax asaga uu suubiyay ma aha waa wax anaga dhan ah dadka dhan waa bil aadanka dhan ayaa isku qanciyo ayagoo bidaar leh ha inuusan madaxiisa wax ka qabanin oo nafsadiisa been ku qanciyo okay malid soco ayuu isdhaaya lama rabo wixii hadad aragtid wax ka qaban kartid okay wax ka qabadhisee xaaladeedii isa ugu hortagileed dhibaatadaas dagaalkaas gal infaanta daas lees waqti ay isiisid tinta kuma sugayso ayadana waa si yaraanaysa already waxay gaaraysaa meel heer adag ayuu ku gaaraysaa lama rabo hal rabo meel dabacsan ayadoo ku marsi inaad ka hortagtid mar walbana ka hortaga fiican ka tabadaga waa dib badan yahay marka taasna la socdo waayahay marka sawirkan quruxda badan ma sha Allah ay leeyahay waxaan kala intusayaa insha Allah videogan ila daawada السلام عليكم walaal muuse waan ku salaamay marka hore waxaan rabaa insha Allah natiijo aan ka helay daawada new hair lotion inaad la wadaagto asxaabta ku xiran page-kaaga anigu muddo aduu ila dhowr sano xagga salxama iyo dhibaato iga haysatay sawirkan dambe aan ku soo diray geedaha daba taaganahay waa intii aan timaha lahaan jiray ee salxamaha ku qarin jiray timaha si ayna dadku u arkin balse dadku way arki jireen anin baa niyada ku dhisan jiray in ayna dadku arkin marka timaha saasan u bixistay aan ku qarin jiray kan dambe isna waa marka aan timaha iska xiiray kan u dambeeyana waa markii ay timuhu caadi igu soo baxeen
marka dhibaatadeedu waxay ani xagga salxamaha ayaa aad ay bahashu iga gashay. marka insha Allah walaal waxaan rabaa inaad dadka la wadaagto. in badan waan ka moraal jabay aduu bidaarta iyo wax caynkaasa, laakiin daawadan markaan arkay wax ii faahfaahiyay waayey iyo sidee u shaqayso YouTube-ka ayaan ku qoray. kadib adigaa ii soo baxay ilaahay amarkii oo page-kaagan galay. kadib adoo si fiican uga sheekeynan arkay, sidii baan kugu xidhbay. halkaas markaan ka arkay daawadii waan soo iibsaday, waxaan gartay inay tahay wax shaqaynaysa. markii aan soo iibsaday insha Allah waan isticmaalay. walaal aad iyo aad baan marka wallahi kugu mahadcelinaya. ma aqaano runaantiisi inta ka badan aan kugu sii mahadceliyo. ilaahay ku sharfo ayaan ku leeyahay, asxaabtadana la wadaag insha Allah. ما شاء الله وأركتين أجعلي فيديو كان وأركتين صما أوكي دانيرو وأركتين ولكن أساوح والبا إدين شيء أساوح والبا إدين عدي صما أوكي ما بالله بحنا ما إن لسيها الله صما أساوح والبا إدين عدي مركاني وحنك أورن لها أردن بولكن أسايا كداي ما شاء الله ومهسيني أوكي مركا وأنا إدين شيء مر والبا هذا أنا جوا أكتين دانيرتا مدنا أجادا مدة 5 دقيقة أيام استعمال عنيقة طبعا مالي مركز استعمال يزيد فضلا كنصو 3 إلى 4 مالين كلا هدانا كنصو اوكي نصو سقل كدب هدانا بالله مركز ساسو بس اسبدل كاغا حولي ايوكو ايمان دونا ان شاء الله حولي ايوكو ايمان دونا حولي ايوكو ايمان دونا باذن الله كريم مركز ددالكنا بديا مر والبنا مهمته waxay tahay inaad dadaashid nafsadaada arunta u sheegtid nafsadaada runta u sheegtid nafsadaada runta u sheegtid waxa qabsan kartaa sababtoo qof gees yaa wataabad runtii waxaa geesnimada lagu sheegay waa runta inaad mar walba ku dhaqantid waaye adiga inaad runta isku sheegtid. marka insha Allah aniga hadda mar walba idin sheega hoos u dhac ayaan galay Soomaa, hoos u dhac ayaan galay dib u dhac. marka insha Allah waa ka soo qabsan doonaa inaan kor imaado ayaan rajeyn doonaa insha Allah. waxaan ku dadaalayaa aniga dadaalkayga hamigayga insha Allah waxa waaye inaan helo wax fiican oo tayo leh oo kadibna laga maarmo inaan mar walba waxa ma fiicnin mar walba la isticmaalo runta hadii laga hadlayo waxaan mar walba in la isticmaalo ma fiicno. okay muddo markaad ka maqanto oo kale mar isticmaal yes laakiin hadii wixii ay tahay joogteen ku haay madaxa mar walba mari ma fiicno. taas waxa ka fiican shay hadii la helo la isticmaalo wayna jiraan kulay dabcan shirkado badan ayaa tartamo wax soo saara. marka dadkiina maadaama kalsoonida ay ku yaraatay qofka bini aadanka kalsoonidu ka socda kalsoonida maadaama ay yaraatay oo wax walba inta shayga aan soo gato been noqdo marka markii runta imaadid maxaa kugu qafilmay beentii hore ku soo sawiraysa maxaa lay beentaada hore runta dambe u basbaxa Soomaa waa sax wixii been badan la kulantay oo wax ku soo saari waay tii marka imaado aleeyahay aad istraatan qabso waxa ku soo sawirmaayo kuwii hore wax ku qaban waay. okay markaas ka joogsanaysaa qasal leedahay waana tii u baahnaa oo maanta laga yaabay alxamdulillah inuu ku caawinayso oo kor ku soo qaadilay. marka aniga muhiimada u socdo ugu weyn waa intaas insha Allah ila socdo inay fahanteen ay jeclahay akhyaarta insha Allah anigana la socdo aniga xataa madaxa caadadka eegan baabiin aniga madaxa caadadka xataa eegan baabiin mar walba aan xoqo waa leeyahay inta isticmaali saliidaha madaxna xoqaysid waa leedahay laakiin agoolkana waa gooni wixii agool ah oo qofka agool uu leeyahay mid kalena waa idin sheegi doonaa biritaan ka hadli doona insha Allah. taas yaro walaalkay sawir soo dir insha Allah taasna biri ayaan ka hadli doona insha Allah birito ee arintaas si fiican uga hadli doona aan rabaa dadkinan uu ku mahadsan yahay maadaama uu dhahay asxaabta runtii ku dhiirigeli arintaas waa arin kale insha Allah aan ka hadli doono oo ah mid dadka qaybtood caadadka dilaaca madaxa ku imaado taasna way jirtaa taasna insha Allah birito ayaan ka hadli doona hadii Ilaahay nafti ugu simo maalinta birita ah ayaan ka hadli doonaa insha Allah. waaya marka ana hada xaaladeeda ugu weyn insha Allah way soo taraysaa markii aan mataqaanaa insha Allah isbedel fiican aan keenana oo kaniiniga ahna waa idin sheegi doonaa. waaya la socda masaajka dhalinyaro madaxaaga inta kor ka marisid ha ku degdegan sidii saliidoo kale inta u marisid ha ka ordin no way saas suubinin waxaad samaysaa ku xooq madaxaaga ku masaajay heer ilaa ay kaga qalasho kuleelka dadka oo markay dermarool ku xoqaan niyo relation isticmaal ku buufiyaan kuleelka aad dareentaana waa inaad si fiican u xoqday ayaa dareemaysaa sababta markaad rollerkan ku xoqaysid irbada waaye madaxeeda dilaac ayuu yeelanaya insha Allah. la socda way dhamaanaysaa waxa waaye tabcaan waa ma fahantii waa mid kale furi doona insha Allah tan waa tabcaan waxay tahay in Ilaahay amarkiis isbedel fiican ah helno ayaan Ilaahay ka rajeynaynaa. isbedel fiican helno ayaan Ilaahay ka rajeynaynaa. khayray qof walbana
وجعليه إنه يسبدل في عنها إن شاء الله قفل بنا علينا مريض كتلا سهله إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.